nabiyullaahi yuusuf waa inan yar. waa midda labaadee cidda mu'aamarada iyo ikhtiyaalka u wadda waa ciddii uu tol iyo xigaalba la ahaa, waa walaaladii. cadow hadduu ku dilo waad qaadanaysaa, waayo waa cadow. laakiin kaad sanadka moodaysay, kaad tol iyo xigaal bidaysay, kaad islahayd waxbuu ku tarayaa, hadduu isagu noqdo ka mu'aamarada degaya iyo sida lagu dilo, waa nabar aad u kulul, waa nabar fudud ahayn. nimanka kan waxa ay tilmaamaysaa amraad alquluub, wax badan oo sharcigu nahiyey, laakiin dadku ay iska fudaydsadeen. markay waxaani koraan, risalka ay dhalaan inta uu leekaanaya ayaad dareemaysa. nimankani go'aan bay qaateen. go'aankay qaateen waa maxay? uqtuluu yuusufa aw itraxuuhu arda. yuusuf dila ama dhul durugsan geeya. maxay faa'iidayaan? waxay idhahdeen yakhlu lakum wajhu abiikum, aabbihiin wejigiisaa keli idiin noqonaya. shaytaanku waa aad buu imtixaanu yihi. nimanka kan markaad jariimo gelayso, dembi qofku markuu gelayo waxay ahayd inuu wax badan isdhinac dhigo. probabilitieskii jiray, ihtimaalaadkii jiray may arag ilaa mid mooyaane. may arag oo masaa'il yacni badiihiyaad oo aad u fudud baa ishoodu dhaaftay. may dareemin war ninkan aad dilaysaan waa walaalkiin. may dareemin war waa walaalkiinoo aan haddana waxba geysan. may dareemin war waa walaalkiinoo haddana yaroo aan iska kiin celinaynin. may dareemin war jariimadiinnan armaa la ogaadaa, armaa ikhtishaafu dhacayoo jariimadiinnu ay muuqan kartaa. may dareemin aabbaheen maxaa ku dhici kara haddaynu waxa kan samayno. may dareemin arbaa khitatu tanfiid aynaga fashishaayo wixiina aynu gallaa, wixiina sidii aynu rabnay ay noqon waayaan. may dareemin armuu wiilkan yari noolaadaa. may odhanina armuuba boqor noqon karaa ama soo bixi karaa, ama waxaasoo dhan shaydaan ma tusinin. ixtimaalkii ugu liitay buu tusiyey oo ah aabbahood alamri alwaaqic intuu qaato inuu iyagu jeclaan doono markuu kuwii uu jeclaa meesha ka baxaan. waxa qura iyagu ay arkeen waa maxay? labadan yaryari marka ay meesha ka baxaan, ilaan odaygu carruur kalou jeclaada markaa ma haysta inuu iyaga jeclaan doono yacquub. waxay leeyihiin yakhlu lakum wajhu abiikum, haadihi waaxida. ka labaad ay tusiyeen waa maxay? waxa weeyaan dembiga iminka gal, hadhowna toobadkeen. dembuu sii xidhxidhan yihi. waxaanu rabaa toobaddu inay maxay? dembiga ka dambayso. waxay leeyihin watakunuu min bacdihi qawman saalixiin. markaynu jariimadda fulinne ee lagu kala dareeray wax waliba aynu dhag kaga dhigno, dee markaasaynu toobad keenaynaa. markaas ayaynu toobad keenaynaa. yuusuf waxaa ku dhacay inuu inan yar yihi. waxaa ku dhacay cidda u tashanaysa inay walaaladii yihiin. waxaa ku dhacay cidda laga wadaa inuu aabbihii yahay. dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala mid iyagay ka midabuu wuxuu ka yeedhsiiyey. qaala qaa'ilu minhum laa taqtuluu yuusufa wa alquuhu fii hayaabi yaltaqitu bacdu sayaara in kuntum faaciliin. mid iyagii ka midunbaa waxaa alla ka yeedhsiiyey. farajka ilaahay markuu furayo meel dhow baa alla ka furaa, kolba in yar baa alla furaa. mid iyagii ka mid ah waxaa laga yeedhsiiyey waar haddaan rabno uun nin kastoo maaha inaynu fogayno meesha innagu u hadhno, ha dilinee dilka ka daaya, laakiin godadkaa fogfog mid iskaga tuura. dadkaa socotada iyo meelaha maraya ha sii qaataan oo dhulkaa ha laga iibsado ha lumadee, dee innaguna aynu aabbaheen u hadhnee. maxaa dhacay marka? waxaa dhacay qisadu sida ay qorayso inay nimankani aabbahoodu tageen, iska muslaxdeen, go'aankii ninkan u dambeeyey in la qaatay. dabeetana intay aabbahoodu tageen ay yidhaahdeen yaa abaana maa laka laa ta'manna calaa yuusufa wainaa lahu lanaasixuun arsilhu hadan macanaa yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun. inay yidhaahdaan aabbow wiilka waa ilaalinaynaa, waa dhowraynaa ee nugu dar, berri waa soo cayaarsiinaynaa, nala soo cayaaro ha soo boodboodo. waa kaasi waxay tilmaamaysaa cayaarta iyo boodboodku carruurta noloshooda halkay kaga jirto, iyo nebigaasi ilmaha uu jeclaa inuu oggolaaday cayaarta iyo boodboodka in loo kaxeeyo, isagoo in badan warwarayay oo uu sheegaya warwarkiisu weliba wuxuu yihi. qaala inii layaxzunanii an tadhabuu bihi waakhaafu an yakulahu di'bu waantum canhu haafiluun qaluu lain akalahu di'bu wanaxnu cusba inaa idan
لخاسرون ويلكي ويكحيين فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وكحيين قد بيكون ردين waxaad qiyaastaa ilmo yar oo walaaladii daclada hayaan oo qaylinayo god lagu sii ridayo oo waliba godka meel caadi ah laga ridayna meel ghayaaba ah ghayaabadu yaani waa meel madow oo fog oo qarinayso uu ku lumayo ghayaabati aljub goof inta lala doontay in lagu sii dhaadhacay oo meel halis oo aanu ka soo bixi karin la geeyay inankaasi muxuu dareemayaa yani maxaa dareemi lahayd haddii walaalada intay ku qabtaan ay ku qaadaan oo ay god cidla ku geeyaan oo meel aan cid iyo ciirsitoona ku joogin inta lagu geeyo god lagu rido oo waliba god hooseeya lagu sii ridayo jariimada intan lag maxaa keenay maxaa sababay jariimada intan lag waxa sababay waxyaabo fudud marka hore oo ah cadhacadho iyo wax laga cadhoodo iyo daqaain iyo waxaasiyoo koray amraad alquluub la daweyn waayey xanuunada qalbiga ku dhaco la daweyn waayey oo koray ilaa ay xaasidnimo gaadheen oo natiijadii ka ratibantay ee tan noqotay maxaa go'aan noqday wuxuu noqday intay xag iyo xagga kaga dhuftaan inay dilaan aabbahoodna inuu isagu waa mujtamac yar oo ka kooban aabe iyo carruurtii waa mujtamac ku nool waliba guri nebi